hay'adda CCS oo kaashanaysa SWD ayaa waxay maalmihii u dambeeyay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar iyo deegaamada hoos yimaada ka waday mashaariic kala duwan oo ka fulinaysa hay'addu guud ahaan deegaamada gobolka Saraar. mashaariicda ugu waaweyn ee hay'adani ay ka qabatay gobolka Saraar ayaa kuwa ay ku kaalmeynayso dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen isla markaasina ku jira kaabanka kala duwan ee ku jiraan dadka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalooyinka Caynab, Wadaamago iyo Cunaayo oo ka tirsan gobolka Saraar. hay'adda ayaa ugu horeynba waxay deeq biyo oo booyada ay gaarsiisay dadka barakacayaasha ay ku jira kaabanka saddexdaasi magaalo. deeqdan biyaha ahayd oo ah mid si weyn ugu baahnaayeen ayaa waxaa ka mahadnaqay dadka iyagu barakacayaasha ay kaabankaasi ku jira. waxaana ugu horeynba ka warbixiyay Yuusuf Xasan Jaamac oo kamid ah howlwadeennada hay'adda CCS iyadoo sidoo kalena maamulka gobolka Saraar ka degmada Caynab iyo qaar kamid ah dadka barakacayaasha ay kaabankaasi ku jira ay ka mahadnaqeen deeqdaasi la soo gaarsiiyay biyaha ka kooban. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan joognaa kaamamkii barakacayaasha ee degmada magaalada Caynab ku wareegsanaa dadka loogu talagalay dadkii abaaraha ay xoolahooda dhameeyeen ay ku nool yihiin. marka maanta waxaan halkan soo gaarsiinay biyihii waan doonay in gudida abaaraha gudoomiyahoogi injineer Khaliif iyo maamulkii gobol degmada oo maayarkii uu ka joogay ay nagala wareegaan biyaha qaabka loo wareejinayo iyo meesha la geynayo iyo sida yacni loogu qaybinayo kaamamka waxaas oo dhan waa shaqadan ay iyagu leeyihiin. anagu in iyagu si guud ah warbixinta u soo gaarsiinay nagala wareegaan weeye insha Allah. marka anaga CCS ururka CCS sharaf weyn bay noo tahay hawshii labaadeen deegaanka ka qabana weeye. waxaan markaa kala shaqeynaynaa gudida abaaraha iyo degmada Caynababa sidii intay taalkayaga aan dadka wax soo gaarsiin lahayn ama raashin ha noqdaan ama ha noqdaan runtii wixii kale biyaha iyo ay ka mid yihiin. marka maanta biyihii ayaynu wareejinaynaa. waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gudida abaaraha injineer Khaliif. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta ay bishu ay tahay 16 bishii 9aad waxa runtii aanu raxan biyaha oo fara badan soo gaarsiisay CCS oo Maxamuud runtii iyo Yuusuf iyo groupkiisu ay ka wakiil yihiin. ma ahna markii koowaad waa markii labaad. horena waxay ugu qaybiyeen lacag iyo raashin dadkan barakacayaasha. waxaanu leenahay iyaga iyo cidii ka shaqaysay iyo cidna soo gaarsiisayba miisaanka xasanaadka wanaagsan Allah ugu daro. waanu idinka gudoonay waanu ku mahadsantihiin waanu idin weeleynaynaa waxaana soo tarteenna waa wax taariikhda galaya. waxaan filayaa sida ballan qaadeen kulli wax ogaanayo deereera la siinayaan waa ballan qaadeen berina raashin baa keenaysaan. waxaan umaleeyaa dadkan wala naf qaybsanaysaan waadna mahadsantihiin dadkan oo waayeelka dadka barakacayaasha hawlo ka dhamaadeenna waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu cawadsan siiyo raxmaad degdega ilaahayna siiyo ayaanu ilaahay ka baryaynaa. war aamin dhaha ilaahay roobna siiyo degdega aamin dhaha. hay'adahana runtii si wanaagsan baad noola shaqeynaysaane idinkuna waa runtii dad muwaadiniin oo wanaagsan oo aanu runtii ku darayno taariikhdayada galaysa beeshka taariikhda nololeedka noo galayso aanu runtii ku darsanayna ka mid tihiin. waa maatantihiin waanu idinka gudoonay kelmadiisa waxayna odhan doona meeyarka ayna odhan doona. soo dhaw. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaanu salaamana oo waxaanu horta markii hore soo dhaweynaynaa CCS runtii waa hay'ad wax ku oola. maanta waxay noo keeneen biyo fara badan waxaanay u keeneen markay arkeen dadkooda baahida biyo la'aantu ku hayso gobolka Saraar waa dadka u damqaday bay ka mid yihiin ee waxtarka u geysanaya. runtii annaguna aad iyo aad baanu uga mahaddoobana oo uga mahad celinana. waxaanu leenahay injooyada iyo hay'adaha kale ku dayda walaalaha muslimiinta ee muslimka ah ee dadkooda waxtaraya islaamka ah. dadkan waa dadkii ahaa xooluhu ka dhamaadeen ee abaarta ay ku dhacday. run ahaantii waxaan ay golaha deegaanka ee degmada Caynab waxaan ahay xubin ah qaabilsan community-ga ama bulshada. had iyo jeerna hay'adaha xiriir baanu leenahay waxay wakiil baan uga ahay maamulka iyo golaha deegaanka. marka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa idinkana mahad celinaynaa. waxaananu leenahay qurba joogga gobolka Saraar ka soo jeeda iyo hay'adaha kale caalamiga iyo kuwa maxalligaaba war ku dayda
sida qoliyaha keenaya waxtarka raashin bay keeneen doorkii ka horreeyey maanta biyay dhaaminayaan berrina way bixinayaan raashin adhina way wadaan oo qoysas kooban bay u wadaan marka ku dayda walaaladaas siday waxtarka u geysanayaan idina ugu geysta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaa la sheegay CCS waxay keentaa raashinka iyo xaynta maantana waxay keentay kuliyada biyaha ee aanu qaybinayno kolley dhowr meelood oo degmada ka mid ah hadday ilaa cunaayo tahay wadaamago kaamaamka barakacyaasha caynaba waxaasoo dhan waanu qaybinaynaa CCS waxaa horena u keentay raashin berrina waxay bixinaysaa raashinkii haddii alluu ka dhigo adhi yarna waa jiraa barakaatu waxaanu nahay dadkii xooluhu ka madheen ee barakacan halkan yaalla hay'adda CCS biyaha ay noo keentay aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay dadka kalena sidaa ay noogu keentay ha ugu daydaan dadka halka yaallaanu nahay saraar bay ka yimaadeen hawd bay ka yimaadeen meel kasta way ka yimaadeen anigu saraartaas ayaan deganaa buuraha ka sii jeeda aan ka soo xooluhu nagaga madheen aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa hay'adda iyo waxtarkeeda aad baan ugu mahadnaqaynaa baa mahad leh marka labaadna waa mahad leh hay'addan maanta biyahana soo gaarsiisay aad iyo aad ku fara badan CCS maanta biyahan biyo ka badan oo isku maalin intan in la timaado maanta ka hor uma imanin oo waxa aad iyo aad loogu mahadiyaa waxyaalaha koobaad ee kaamku waxa weeyaan ka liitana waxa ka koowa biyaha maanta garoonkan biyo way iman jireen biyaha intan tira leegi maanta ka hor ismay soo taagin sidii odayaashu sheegeen waxa weeyaan waxyaalo fara badan oo horana way noo soo gudbisay hay'addani waxyaalo kalena ilaa biriyo saadamo way noo soo wadaa waan uga mahad celinaynaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa haddaan nahay shacabka soo barakacay ee barakacyaasha allah mahad leh iyagana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi sidoo kale hay'adda CCS oo kaashanaysa SWD waxay deeq xoolaha guddoonsiisay dad danyara kuwaas oo xoolihii haysteen ay ka faramuroojisay abaartii baahsaneed ee ka dhacday gobolka Saraar waana kuwan dadka barakacyaasha ah ee xoolahaasi la gaarsiiyey kuwaas oo ka mahadnaqaya deeqdaasi ariga ah ee hay'adda CCS ay u qaybisay waxaan u mahad celinaynaa hay'adda arigana siisay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa boqol baan ugu mahad celinaynaa aad baan ugu hambalyeynaa hay'adda CCS ayaa sidoo kale waxay deeq raashina oo dhameystiran ay guddoonsiisay ilaa iyo 780 qoys kuwaas oo ka mid ah dadka barakacyaasha ee ku nool deegaamada gobolka Saraar dadka barakacyaasha ayaa deeqda raashinka ee la guddoonsiiyey waxay ka koobnayd bariis, daqiiq, sonkor, caano, saliid, baasto iyo cuntooyin kale waxaana halkaasi ka mahadnaqay dadka barakacyaasha ah ee iyagu la guddoonsiiyey deeqdaasi raashinka iyadoo sidoo kale maamulka gobolka Saraar iyo degmada Caynabana ay tilmaameen in deeqdan hay'adda CCS ay bixisay ay tahay mid si weyn ugu baahnaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaah waxa maanta aanu wada joognaa guddiga abaaraha ee gobolka Saraar maamulkii degmada iyo madaxdii ciidamada halka waxaan u joognaa iyo barasaabkii gobolka dhammaanteen halkan waxaan u joognaa inaan maanta halkan ku wareejino raashinkii loogu talagalay dadka barakacyaasha ee abaaruhu saameeyeen waa maalintii labaad marka maanta raashinkii baan wareejinaynaa waxaan halkan markaa jecelahay in madaxdu ay halkan nagala wareegaan annaga CCS ahaan dadkiina waa kuwana way fadhiyaan qoys walba raashinkiisii buu haystaa sharafay markaa noo tahay inaan maanta mar labaad aan raashinkii deegaanka iyo gobolkaba keenno 780 qoys baad nagala wareegaysaan aan ugu talagalnay raashin bil ku filaado qoys walba in runtii ay ka faa'iideystaan aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan siin doonaa kelmadaha maayarka iyo madaxda kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan runtii maanta aad iyo aad halkan ugu mahadnaqaynaa hay'adda CCS iyo shaqaalaheeda oo runtiisii hagar la'aana dadkan u soo gaarsiiyey raashin 780 qoys shalayna waxay qaybiyeen ari bay qaybiyeen 50 ah waxa la siiyey 10 qoys arigaana waxa la siiyey dadkii u baahnaa 10 qoys oo gobolkan dadkii ka soo barakacaya ayaan qoys walba waxa la siiyey 5 neef maantana waxa la qaybiyey 780 qoys baa la siiyey raashin bil ku filan oo fiican oo runtii tayo leh waxay kaloo qaybiyeen shalayto biyo raxan biyo fara badan oo shalayba qaybiyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa
iyaga iyo wixii ka shaqeeyay baad baan ugu mahadnaqaynaa lacagna waa la qaybinayaa iyana baa la leeyahay waa mahadsantihiin waa ilaahay mahadi waa 87 qoys ayaa si nabadgeliya halkan loogu qaybiyay raashin CCS hay'adda CCS insha Allah waxaan inoogu dhamaatay si nabadgeliya iyadoo ay u dhan guddiga abaaraha gudoomiyada gobolka degmada ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa sida nabadgelyada badan ay noogu dhamaatay kullaytana waa hawl hay'aduhu had iyo jeer ay ka wadaan gobolkan dadkii ku barakacay ee xooluhu maartay abaartu ka qaaday waa yadhant bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan marka hore salaamayaa bahda saxaafadda waxaan kaloo salaamayaa hay'adda CCS ee halkan maanta ku sameynaysa food distribution kama cunto qaybinta degmada Caynaba shalayna samaysay qaybinta ariga iyo maxaan ku dhahday iyo biyaha dhibakaamyada ama barakacayaasha aad iyo aad baan u salaamayaa cid kastoo ka soo horgashay aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa dadkan halkan raashinka lagu siinay barakacayaasha intaa ka bacdi waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hay'adda CCS oo ah doorkii labaad ee ay hawshan oo kale ka bilowdo gobolka sare gaar ahaan degmada Caynaba goobaha ku yaala barakacayaasha runtii waxay bixisaa raashin quality tayo fiican leh sida ka muuqata maxaan ku dhahday halkan oo qoyska runtii si fiican ugu filan oo nooc kasto adeegii qoyska waxa uu qoysku u baahnaa noloshii ku wada salaysan marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa CCS alwadanada aad baan ugu mahad celinayaa maamulkan isku soo habeeyay dadkan iyo soo xulay aad baan ugu mahad celinayaa cid kasta waan uga mahadnaqayaa hawsha iyada waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ilaahay allah mahad leh mahadda labaadna waxaan siinayaa annagu dad baahan baan halkan jooga dadka baahan cid alla cid wax nala tarta yaa waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay halkii wax ka soo saareen meel ka runay uu geliyo waxa kale halkan aan shalay ku qaybinay konton neef oo ay bixisay hay'addan CCS waxa kale oo aan shalay too qaybinay biyo oo ay magaalada iyo barakacayaasha bas loo shubay cusbatalka booliiska jeelka biyo deeqay amarka ilaahay waxa kale halkan maanta aan ku gudoonay oo qofkiiba la siinayo $100 marka ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay halka wax ka roon noogu soo kordhiyo dawladana iyo hay'adaha caalamigaana mid baan leeyahay midkaan leeyahay waxa weeye waar dadkan kiish loo qaybiyaa waxba tari maayo dadka dib ha looga celiyo dadka dib ha loo celiyo wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh haddaan nahay dadka barakacayaasha baahanahay dadka xoolahoodii abaarsadeen maanta yoomkan maanta raashinkan waan ku mahadnaqaynaa iyo yoomkii hore ee walaalaha iyaga kaleba qaateen shirkadan hay'adan siisay CCS aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wayna mahadsan tahay salaam alaykum barakacayaashan hay'adan siisay CCF maanta CCS maanta waan ku mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyadana khayr insha Allah ka siiyo annagana dhaxna taraysa waan soo gaadhay ugu dambeyntii hay'adda CCS oo kaashanaysa SWD waxay deeq lacaga ay u qaybisay dad yar oo kamid ah dadka xoolahoodii ay ka dhameysay abaartii baasanida soo martay gobolka Sare waxaana dadkaasi danyarta ah ee loo qaybiyay lacagtaasi ay hay'adda CCS ku tilmaameen inay tahay mid la naf qaybsatay waqti ay aad ugu baahnaayeen gacan qabasho bini'aadan hay'addu lacagtii waana soo gaarsiisay dadka iyaga jilicsan ma sha Allah mahad baan u qabnaa wuu mahadnaqaynaa hay'adda iyadana siisay dadka iyaga danyarta ahaa ragii ay noogu soo dhiibtayna siiyay waxaan u helinaynaa 100% mahad baan u celinaynaa way mahadsan tahay $100 baan qaadanay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iyaga iyo wixii siiyayba jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba sidoo kale hay'adda CCS waxa ay deeq raashin hore ugu qaybisay qoysas barakacayaal oo ku nool gobolka Saraar
hay-adda CCS oo kaashanaysa Forum SWD ayaa waxay deeq raashina ay saaka gaarsiisay qoysas gaaraya 780 kuwaas oo ku nool kaamamka barakacyaasha ee ku yaala gudaha magaalada Caynaba. Hay'addaasi CCS ayaa waxay sidoo kale saaka subaxnimadii hore ay sidoo kale deeq lacag iyaduna gaarsiisay qaar ka mid ah dadka danyarta ah ku dhaqan gudaha magaalada Caynaba. Waxaana munaasabadihii deeqahaasi ay hay'addaasi ku wareejinaysay goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Caynaba iyo mas'uuliyiin kale. ugu horeynbana Yuusuf Xasan Jaamac oo ka tirsan hay'adda CCS ayaa ka warbixiyay qaybaha kala duwan ee deeqdani ay ka kooban tahay. maanta waxaan halkan ku qaybinay raashinkii dadka danyarta loogu talagalay ee degmada Caynaba gaar ahaan dadka danyarta ah ee abaaruhu soo saameeyeen. dadkaas waxaa loogu talagalay in maanta loo qaybiyo raashin qaarna waxaa loo qaybiyay lacag oo kaash baa loo qaybiyay marka tirada la isku daro waa 112 qoys weeye. waxaana loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan mashruuca waxa iska kaashanay CCS iyo Forum SWD oo maalgelisay aad baan ugu mahadnaqnaa maamulka degmada iyo dadka waxaan rajaynaynaa inay si fiican uga faa'iideysan doonaan aad baa mahadsantahay. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Nuur Qaasim Qodax xogayaha fulinta ee gobolka Saraar Cabdirasaaq Maxamed Cali Daad xildhibaan Abubakar Shida Cali oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Caynaba iyo waliba Professor Salebaan Cali Caweed kamid ah aqoonyahanka gobolka Saraar ayaa si weyn uga mahadnaqay hay'addaasi CCS sida hufan ay deeqdaasi u soo gaarsiisay dadka danyarta ee lagu talagalay. halkan maanta waxaanu kaga gudoonay hay'adda CCS raashin dhan 87 qoys oo raashina oo bariiskii leh oo baastadii leh oo daqiiqdii leh oo saliidii leh oo timirtii leh runtii waxaa maanta ka faa'iideystay 87 qoys ee barakacyaasha gobolka Saraar kamid ah ayaa ka faa'iideystay raashinka aad iyo aad hay'addaas ugu mahadnaqaynaa. waxaa kale oo jira dad yar oo isagana ay xogaa lacag soo gaarsiisay jisaakala cidii soo dirtayba meesha ka soo saaray meel wax ka soo saaray gobolkan isaga waxa yaala 8,000 oo qoys oo barakaca 8,000 oo qoys oo barakaca marka maanta 200 oo qoys wax loo keeno way isku sii dilbaqtiyaan weli may gaarin heerkii ay ama laba qoys xulay lahaayeen ama ay 3 qoys xulay lahaayeen waxa laga yaabaa in marka ay 1,000 iyo 2,000 oo dhow barakacay magaalada gudaha taalo 200 oo qoys loo qaybiyo waa garanaysaa hadda ay marka qaybsan galaamun bay weeliyaan dhammaan hay'adaha caalamiga kuwa islaamiga iyo xukuumadda horta wixii hore dawladdu soo dirtay way soo gaadheen oo wada waxaanay maanta qoodanayaan bay ka mid tahay ama galaam ha noqdeen ama ha noqdeen shoobe laakiin meesha waxa taala in ku talagal weyn la sameeyo barnaamijkii dadkan lagu hayn lahaa waayo 8,000 oo qoys oo aan xoolo haysan oo aan biyo haysan oo aan caruurta raashin marka loo keeno caruurtooda way cagaaganta iyagii way aradan yihiin baahida caloosha waxa ka daran baahida ibn aadanimo ee jirka iyo kabaha iyo wax walba leh. anigu waa xildhibaan Abubakar Shida Cali waxaan la qabnaa waxaan ka mid ahaa guddiga abaaraha waxaan la qabnaa gudoomiyaha kusimaha gobolka Saraar baaqa u jeediyay oo la qabnaa dadka golaha deegaanka baahida gobolka waa balaaran tahay Saraar bay jirtaa Caynaba jirtaa 8,000 oo barakaca abaa meesha yaala baahiduna waa balaaran tahay baahida hadda maanta ugu daran waxa weey waa biyo oo caruur 3,000 iyo 400 oo caruur ah ayaa halkan jooga oo aan biyo loo hayn macaan iyo biyo saaf mid loo hayn shareecada bilaabatay oo laba kaclaysay. bismillaahir rahmaanir rahiim sida gudoomiyuhu sheegay raashinka tirada uu sheegay gudoomiyuhu uu la soo gaaray saaka gobol ahaanna si wanaagsan baa loo qaybiyay cabashada iyo tirada uu sheegay iyo saabiga aan qaybsamayna waa mid ku badan gobolka tirada qaxoontiga uu sheegay gudoomiyuhu gobolka way yaalaa iyo kuwa kale aan muuqanaynin marka waxaanu rajaynaynaa halkii ay ka soo saareen cidii deeqda bixisay in ilaahay wax khayr qabo ugu bedelo cid kasta oo dadkan wax taraysa oo u soo sidana inay ugu soo dadaalaan ugu soo dhaqsadaan ayaanu ku rajaynaynaa. CCS organizationka la yiraahdo iyo qoladan la yiraahdo Forum SWD oo maanta halkan keenay raashin ay ugu talagaleen dadka IDPs ama barakacayaasha magaalada Caynaba raashinkaas oo ka kooban 780 qoys runtii markaad eegto quality-ga raashinka uu noocii ugu horeeyay ee noociisa ay Caynaba la keeno marka loo eego dhinaca items-ka uu ka kooban yahay waayo wuxuu ka kooban yahay wixii qoysku u baahnaayoo dhan
waxaan malayna waxa ka maqan milixdii uun jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba